dhexe weerar iyo weerar celis ayaa socda hadallo kulkulul oo hanjabaad wata ayaa hawada laysu marinayaa waxaa bilowday duqeymo culus iyadoo maraykanku markii ugu horreysay tan iyo dagaalka iiraan markuu qarxay waxa uu weeraray goobo cusub oo aan horay loo weerari jirin arrintan maxay ka macno tahay iiraan dignin ayay bixisay goor dhaweyto wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka iiraan wuxuu u diray fariin waddamada khaliijka haddaba intaanan u gudbin wararkii ugu dambeeya xaalka bariga dhexe oo saaka bariga dhexe ah waxaynu ku hormaraynaa war weyn oo la xiriira ruushka oo si adag uga hadlay qorshe NATO ay wado dowladda ruushka ayaa si adag uga digtay qorshe kasta oo lagu geynayo hubka nuclearka dalalka Baltiga iyadoo sheegtay in tilabadaasi ay sii kordhin doonin amniga gobolka balse ay sare u qaadi doonto qatarta iyo xiisadaha u dhaxeeya Moscow iyo NATO afayeenka aqalka Kremlinka ee looga arrimayo dalka Ruushka Dmitry Peskov ayaa ku nuuxnuuxsaday in haddii dalalka Baltiga ay ogolaadaan in wadamadooda la dhigo hub nuclear ah ruushka uu qaadi doono tillaabooyin uu ku difaacayo danihiisa amni wuxuu xusay in dalalkaasi aysan heli doonin amni dheeraad ah balse ay wajihi doonaan qataro sii kordha hadalka Kremlinka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Lithuania Gitanas Nauseda uu sheegay inay jirto siyaasad la isku raacsan yahay oo ku dhow in wax laga bedelo qodobka dastuurka ee mamnuucaya hubka nuclearka iyo saldhig military ee shisheeye oo dalka laga sameeyo baarlamaanka Lithuania ayaa la filayaa inuu bilaabo hannaan qaanuun oo arrintaasi lagu bedelayo Lithuania oo xubin ka ah NATO taliya sanadkii 2004 ayaa horay u muujisay inay diyaar u tahay in dalkeeda la dhigo hubka nuclearka Mareykanka si loo xoojiyo awoodda ka hortagga ruushka dhanka kale Finland ayaa bishii hore waxay ansixisay qaanuun meesha ka saaraya xayiraadii dagaalkii qaboobaa ee hubka nuclearka iyadoo dowladda Helsinki ay sheegtay in tilaabadaasi ay sare u qaadayso amniga qaranka iyo waajibaadka NATO warbixin ay daabacday jariirada Financial Times ee ka soo baxday magaalada London ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu ka fakarayo ballaarinta goobaha lagu kaydiyo hubkiisa nuclearka ee gudaha wadamada Yurub ee xubnaha ka ah NATO si loo xaqiijiyo in dalada nuclearka Mareykanka ay sii jirto wahagaag warkaasna halkaas aynu kaga gudubno imikana Ankara aynu eegno iyadoo lagu soo waramayo in wax laga bedelayo qorshihii looga mamnuucayay in Turkiga laga iibiyo diyaaradaha dagaalka ee F-35 ayaa hadda waxaa soo baxaya warar yididilo leh oo dhanka Mareykanka ka imaanaya haddaba arrintan waxay ka soo yeeraysaa qaar ka mid ah xubnaha Koongareeska iyo sanadka Mareykanka xildhibaano ka tirsan golaha sanadka Mareykanka ayaa sheegay in suurtagalnimada in Turkiga dib ugu soo laabto barnaamijka iibka diyaaradaha dagaalka ee F-35 ay noqon karto tilaabo muhiim ah oo faa'iido u leh Ankara iyo Washington isla markaasna kor u qaadi karta awoodda difaaca ee isbahaysiga NATO senataradan waxay sheegeen in arrintan ay ku xiran tahay xal laga gaaro walaaca Mareykanka ee ku saabsan nidaamka difaaca hawada ee S-400 oo Turkiga uu ka soo iibsaday Ruushka Turkiga ayaa laga saaray barnaamijka ka faa'iideysiga mashruuca F-35 kadib markii uu Ruushka ka soo iibsaday gantaalada S-400 Jen Shaheen oo ka tirsan guddiga xiriirka dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa ku nuuxnuuxsatay in haddii la helo hanaan lagu xaqiijinayo in nidaamka S-400 uusan qatar ku ahayn teknolojiyadda diyaaradaha F-35 dib ugu soo laabashada Turkiga ay faa'iido u noqon karto labada dal waxa intaasi ay ku dartay inay weli jiraan su'aalo u baahan jawaabo ka hor inta aan la gaarin go'aan rasmi ah dhinaca kale senator Mike Rounds ayaa waxa uu sheegay in Turkigu yahay xubin muhiim ah oo NATO ka tirsan isla markaasna dib u soo noqoshadiisa barnaamijka F-35 ay sare u qaadi karto awoodda difaaca ee isbahaysiga
wuxuu xusay in Turkiga uu horay uga mid ahaa dalalkii loo xushay soo saarista qaybo ka mid ah diyaaradaha F-35 taasi oo muujinaysa heerka sare ee awoodooda warshadaha difaaca. Senatarro kale ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in NATO ay u baahan tahay iskaashi iyo maalgelin dheeraad ah si loo xoojiyo awoodda difaaca, iyagoo tilmaamay in F-35 weli ay tahay mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee difaaca casriga ah. waa hagaag arrintaa marka waxay u muuqataa in Trump hadda uu helayo taageero ah in Turkiga laga iibiyo diyaaradahan F-35 inkastoo Netanyahu la sheegayo geed dheer iyo geed gaaban inuu u fuulayo sidii uga hortagi lahaa Turkiga inay helaan diyaaradahan F-35 oo Israa'iil oo kaliya ay ka haysato gobolka Bariga Dhexe. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey xiisadaha colaadeed ee Iiraan iyo Mareykanka. xaaladdu saaka cirka ayay ku shareeran tahay, weeraro iyo weerar celis ayaa socda. waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey Iiraan oo sheegaysa inay ku galgalatay saldhigyo military iyo xarumo muhiim ah oo Mareykanka uu leeyahay. intaan u gudbin wararkaasi iyo weliba qodobo kale aynu ku hakana qadar xayeysiina. waa hagaag xaalka Bariga Dhexe waa Bariga Dhexe. intaanan u gudbin duqeymaha iyo weerarada la isweydaarsaday waxaynu ku hormaraynaa warka la xiriira aaska hogaamiyihii sare ee waddanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei oo maanta la soo gabagabeynayo. war ay soo tuurtay wakaaladda wararka Maahir ee Iiraan laga leeyahay ayaa waxay ku sheegtay in meydka Ali Khamenei in laga soo qaaday magaalada Shiicada u barakaysan ee Najaf ee Ciraaq laguna celiyay Iiraan iyadoo loo diyaarinayo in maanta la aaso. tani waxay noqonaysaa marxaladii ugu dambeysay ee 6 maalmood oo aaska iyo barodiiqdu uu ka socday wadamada Iiraan iyo Ciraaq. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa qorsheynaya in maanta oo Khamiis ah Khamenei lagu aaso magaalada Mashhad oo ku dhashay. jimcihii Iiraan waxa ay bilowday munaasabadaha rasmiga ah ee aaska Khamenei, taasi oo qayb ka ahayd toddobaad barodiiq iyo aasa oo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaala Iiraan iyo Ciraaq ka hor inta maanta aan lagu aasin magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee waddanka Iiraan. waa tahay warkaas marka intaa lagaga gudbo xaaladdu saaka cirkay ku shareeran tahay. waa halkii Soomaalidu ay ka tiri fallaartii cirka loo ganay nin walbow filo. dagaal ballaaran ayaa laga cabsi qabaa. goordhaweed waxaa soo baxay war la yaab leh. Trump oo lahaa shalay ilaa iyo xalay Iiraaniyiintu waa dad xun, waa dad aan lala heshiin karin, ayaa hadda wuxuu leeyahay Iiraan baa isoo wacday oo nabad iga baryaysa. haddaba intaan u iman sheekadaas waxaynu ka hormaraynaa dhanka Mareykanka, gaar ahaan weeraradii la fuliyey xalay. taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa waxa uu sheegay in ay fuliyeen weeraro dhammaystiran oo ka dhan ah Iiraan. taliska ayaa daboolka ka qaaday in la weeraray ku dhowaad 90 bartilmaameed oo ciidan oo Iiraan ay leedahay, kuwaasi oo ay ku jiraan nidaamyada difaaca hawada iyo agabka la socodka xeebaha. waxay sidoo kale sheegeen in la beegsaday goobaha lagu kaydiyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, awoodda ciidamada badda iyo kaabayaasha adeegyada ciidamada ee ku yaala xeebaha Iiraan. taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa intaa ku daray in ciidamadooda weli ay ku jiraan heegan buuxa iyo diyaargarow dagaal, isla markaasna ay diyaar u yihiin fulinta howlgallada haddii uu amro taliyaha guud. waxay sheegeen in ujeeddada weeraradan cusub ay tahay in la wiiqo awoodda Iiraan ee weerarada ka dhanka maraakiibta ganacsiga iyo kuwa rayidka ah ee maraya marin biyoodka Hormuz. taliska CENTCOM ayaa wax kale oo sheegay in weeraradan ay yimaadeen kadib markii Iiraan ay jabisay si hadalka loo yiri xabad joojinta, iyadoo bartilmaameysatay 3 markab oo ganacsi oo gooshayay marin biyoodka Hormuz. isla wararkan shabakadda wararka Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa iyadoo soo xiganaysa sarkaal Amerikaan ah waxa ay sheegtay in ciidamada cirka Mareykanku ay duqeeyeen 2 buundo oo tareenadu ay maraan oo ku yaala Iiraan. sarkaalka ayaa sheegay in weerarkan gantaalada Mareykanku uu yahay
kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu qaado kaabayaasha dhaqaalaha ee Iiraan tan iyo markii lagu dhawaaqay xabad joojinta. dhankooda ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC ayaa bayaan ay soo saareen waxay kaga hadleen weerarada Mareykanka waxaana ay sheegeen waa sida bayaanka lagu yiri cadowga Mareykanka inuu gantaal cruise ku beegsaday buunda ku taal magaalada Aqqalah ee gobolka waqooyiga Iiraan ee Golistan. ciidamada IRGC ayaa sheegay inaanay jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay weerarka iyagoo carabka ku adkeeyay inay si xooggan uga jawaabi doonaan beegsiga buundadaasi muhiimka ah. jawaabta Iiraan ee weerarada ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa waxa ay shaaciyeen inay fuliyeen weeraro duqeymaha oo loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaaradaha droniska ee ismiidaamiya kuwaasi oo lagu beegsaday saldhigyada ciidamada iyo xarumaha istiraatiijiga ah ee Mareykanku uu ku leeyahay wadamada khaliijka iyagoo sheegay in weeraradaasi ay jawaab u ahaayeen duqeymaha Mareykanku uu ku qaaday dhowr goobood oo ku yaala gobolada xeebaha ee koonfurta dalka. bayaanka ka soo baxay ciidamada Iiraan oo lagu baahiyay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in weerarada ay qaadeen lagu beegsaday nidaamka gantaalada difaaca hawada ee Patriot ee ku rakibnaa waddanka Kuwait goob ay ku yaaleen anteenooyinka dayax gacmeedka ee digniinta bixiya ee waddanka Qatar ku yeel iyo haamaha shidaalka ee ay isticmaalaan ciidamada Mareykanka ee Bahrain ku sugan. militariga Iiraan ayaa waxay sheegeen in weeraradaasi ay u adeegsadeen tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah. ciidamada IRGC waxay intaasi ay ku dareen in kaabayaasha muhiimka ah iyo xarumaha saldhigyada ay beegsadeen ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada ee Arifjan iyo Ali Al Salim oo ku yaala Kuwait iyo saldhigga Jufier iyo Sheikh Ciisa oo Bahrain ku yaala. waxay uga digeen Mareykanka in haddii weerar kale la soo celiyo jawaabtooda xooggan ay noqon doonto in la beegsado saldhigyo kale oo Mareykanku ku leeyahay gobolka. waxay sidoo kale sheegeen inaysan ogolaan doonin in weerar kasta Mareykanku uu noqdo mid aan jawaab lahayn. wararka ayaa waxay taasi ay ku darayaan in ciidamada qalabka sida ee Iiraan aysan xaalad kasta ogolaan doonin in la hirgeliyo himilooyinka iyo ujeedooyinka sida bayaanka lagu yiri madaxweynaha nacaska ah ee Mareykanka isla markaasna ay difaaci doonaan mabaadi'da ciidamada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan iyo guud ahaan mabda'a kacaanka islaamiga ah ee dalka iyagoo sheegaya in guusha kama dambaysta ah dhankooda ay jirto. isla wararka Iiraan gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Baaqir Qalibaf ayaa daboolka ka qaaday in marin biyoodka Hormuz lagu furi karo oo kaliya habraacyada Iiraan balse aan lagu furi doonin hanjabaadaha Mareykanka. wuxuu sheegay in Mareykanku uusan weli baran in cagajuglaynta iyo jibinta ballanqaadyada aysan noqon doonin kuwa aan qiimo lagu bixin. dhanka kale wargeyska The Wall Street Journal oo Mareykanka ka soo baxa ayaa waxa uu ka soo xigtay diblomaasi Iiraani ah oo sheegaya in Mareykanku jabiyay heshiiskii nabadda kadib markii uu sameeyay in maraakiib aan lagala tashan Iiraan ay maraan marin Mareykanka Hormuz ka mid ah. diblomaasiga ayaa waxa uu sheegay in jabinta heshiiska Mareykanka ay sharciyeynayso go'aanka Iiraan ee ah in ay beegsato maraakiibta maraysa marin biyoodka Hormuz. wararkii ugu dambeeyay amuurahani gudoomiyaha magaalada Iiraan Shah ayaa waxa uu sheegay in shaqaale ka tirsan waaxda saadaasha hawada ay ku dhinteen weerarkii Mareykanka oo ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. dhankiisa afayeenka wasaaradda caafimaadka Iiraan ayaa waxa uu sheegay in weeraradii dhacay shalay iyo maanta ee Mareykanka oo ku qaaday goobo ku yaala waddanka Iiraan ay sababeen dhimashada 14 qof iyo dhaawaca 78 kale. isla wararka colaadan shabakada wararka Bloomberg ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay ka soo xigatay waaxda la socodka maraakiibta waxaana la sheegayaa in maanta ku dhawaad maraakiibtii maraysay Mareykanka Hormuz ay istaageen. warbixinta ayaa waxa taasi ay ku dartay in dhaqaaqii la arki karay inuu ka socday halkaasi imika uu ka kooban yahay. waxaana la sheegayaa in inta badan Iiraan ay ogolaatay kaliya dhinaca waqooyi ee marin biyoodka in la maro halka Mareykanka Cumaan ee Mareykanku uu taageero la sheegayo inaysan wax maraakiib marayn kadib markii Iiraan ay beegsatay
dhowr markab oo halkaasi damcay inay maraan waaye haddaba iyadoo xaaladda halkaasi marayso hadda waxaa soo kordhay warkan waxaa la sheegayaa inuu la xiriiro Trump ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay wuxuu lahaa hawshan socota Iiraan waxay noqon doontaa mid ay ka shalayso wax nabadana ma jiri doonto hadda war buu soo dhigay wuxuu leeyahay Iiraan baa isoo wacday oo nabad rabta haddaba aynu eegna sheekadan iyo waxa laga qorayo waa hagaag madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu helay fariin Iiraan ah in ay doonayso heshiis Trump oo la hadlayay dadka wararka fidiya ayaa waxa uu yiri ma garanayo inay mudan yihiin in heshiis lala galo Iiraaniyiinta ma garanayo inay ixtiraami doonaan heshiiska taas ayaana wuxuu leeyahay waxay tahay dhibaatada mar la weydiiyay sababta Iiraan ay u weerarayso maraakiibta ganacsiga iyadoo u sheegaysa inay rabto heshiis Trump wuxuu ku jawaabay waa dad waalan wax yar ayay xakamaha ka baxeen laakiin hadda waxay doonayaan heshiis waayahay haddaba arrintan madaxweynaha Mareykanka iyo hadalka ka soo yeeraya wax caddayn looma hayo Iiraan inay la xiriirtay laakiin waxa la sheegay hadda wadahadal qaadka telefoonka inay ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha waddanka Qatar laba arrimood ayaa socota waxay leeyahay Iiraan waxay gudbisay fariin ah haddii duqeymaha ay sii socdaan in gobolka oo dhan ay duqeyn doonto Iiraan waxa kale leeyahay fariin ah Iiraan waxay gudbisay Qatar si gaar ah annaga waxaan beegsanaynaa goobaha Mareykanka adinka idima socono waa suurtagal marka waxa leeyahay fariintaas in Iiraan looga dhigay inay ka timid Trump oo ay doonaysaa nabad waayo dagaalkan hadda maanta maxaa ku siyaadaa waxaa la weeraray magaalada Al-Aqla buundo iyo dhabaha tareenada ay ku socdaan hadda ka hor maysa dhicin sababtu maxay tahay markii Mareykanku uu xiray dekedaha Iiraan ee Hormuz Iiraan waxay isticmaalaysay laba wado mid waa midda tareenka oo ilaa Shiinaha tagaya dhanka kalena waxay isticmaalaysay badda Caspian-ka laakiin xalay maxaa la duqeeyay saakay dhabihii tareenada xitaa hadda maanta waxa caqabad ka taagan tahay isu socodkii magaalada Mashhad oo lagu aasay Ayatollah Ali Khamenei iyo magaalada caasimadda ee Tehran tareenka waa joogsaday sababta waa la duqeeyay dhabihii tareenada Iiraan marka waxa laga yaabaa dagaalka inay u gudbiso weji kale xaaladdu markay arkay maraysaa waa hagaag aynu arki doonaa wixii ku soo kordhay arrimahaasi inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii aana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo